والله بصور أسكو قلمين هالك واحد كم وغدا بل فيري حلا مانك عقاتها شنكون شنبقل أسكو سوى عقاتها لو بقول دور مثلا أسي أي جراف لوجي سامر بديك لقداديا حق دارada Soomaaliya ka taagan in nabad la'aanta keenaysa waa halkan ay ka taaganta xildhibaankii shanqol iyo qaata asagoo waxna aqban askariga Soomaaliyeed qoraxda taagan dhibaataysan dhimanaya curyaamaya lixaad qayb ka mid weenayeen $200 iyo qaata misna waa lagu xadgudbaa asagoo haba yaraatay awood loo shaqeeyo xildhibaan darada awood in Firimbi askariga Soomaaliyeed oo asagoo feer ku dhuftay wax xiray lama garaaxin واحد دولت كاش هوايتي مجرتو أذكر جالس ديك السعودية يعني استال الله قال $5 أيقاتها يشم بقول أذكر الله $2 أيقاتها واحد درجة الصومالي كتاجر مرة بالصومالي دي ويدقلي دي حق لسمناها أذكر الصومالي محكوة إن العق $5 أما قاتو أملح $2 أقاتو هل كحل بانك شم بقول أوقات أسوي مرة لقبان سيد عيال وكله بوق باش دقالة إسفيرايان waxna ee dawladdu u qaban hal xabba ee u qaban 5 sano kaliya ay matalan $500 ay bil walba ay qaataan askar Soomaaliyeed muxuu ku waayay in lacag wanaagsan la sii oo qaato asagoo dhimanaya dhaawacmaya lixaad qaar qayb ka mid ku weynaya caruur leh waalid leh nolol u baahan $200 qof ay ku filan tahay beerta aysan jirin waa la iska intiray askariga Soomaaliyeed lacagta uu qaadanayo $200 in loo badiyo halka xildhibaanka ee darada badan oo kibir ku jooga oo mukeef ku daaray yahay مثلا عسكر Soomaaliyeed feer la ay dhig keenaya ku xad gudbaaya dawladda iyo dadka waxba u qaban $5 qaata halka askar Soomaaliyeed miskiinka iig baxaya dhibaato gaaraysa curyaama maanta dhimanaya ilmihiisa agoon noqonaya $200 oo qaato ariya dalkan nabadha ka sugul waxyaabaha sababaha dalkan heesa u qubad heesa ay kamid tahay noocan waa uqooyinka heesa noocan ay kamid tahay in askar Soomaaliyeed halkan uu ku baadilaya xildhibaankii dawladda waxa uu qabanno muuq kaliya geeya oo buuq iyo rabsho iyo qeelo ku jooga halkaasna $500 qaata farfiiri kibirka batay daragta batay bukeef u daaraya askariga Soomaaliyeedna maanta baahay u baqtinaya waxa laga yaabaa in carruurtiisa waxaa in xataa $200 ay ku filneen ogtaa $200 in maanta cunno ahaan muqdisho $200 maanta qofna wax kuma tarto iskaabado qofka dee xataa ma deeqdo halka xildhibaanka $500 qaato hotel qaalad yahay askar waardiinaysa cunno fiican ka cunaa askartaas asagana cunno fiican cunaa askari waxa inuu bacmadow kala jaaxay raashin kul oo ka cuno asagoo meel duur jooga xaq darada ka socda dalkeen ay kamid tahay wuxuu dalka u deglaayay wuxuu dalka nabad u helayaa sababta ay kamid tahay bal fiiri labadan sawirada hortiin ka muuqda isbarbar isku qalmaan askariga hadda halkan ka dilacsan Firimbi ayaa ku dhuftay milyan xildhibaan Firimbi ayaa san ku dhuftay asagoo disbilinka buuq khaalad jinaya asagoo dowladnimada ilaalinaya ku dhuftay bal fiiri isuma qalmaan $200 ayuu qaataa ninkan $500 ayuu qaataa bal fiiri xaq darada iyo dhibaato dalkan haysa ayaa nooca iska muuqaalka shirkareeya haddii damiir Soomaaliyeed ku jiro ma xaq miyaa in askariga Soomaaliyeed oo qaata $200 xildhibaankan oo qaato $500 bal fiiri dalkan ayaa laga sugaa nabad haba yaraatay wax nabad ma jirto asaga askariga wadanka iska leh dhimanaya dhaawacmaya waardiinaya qarxayda isku dhigaya bal fiiri ilaahay nagu dhashay qarxayda isku dhigaya xildhibaanka wuxuu qabtaa weerarta ma jirto mukeef ku daaran maro cuntay maro jiif iyo maro gaari buruuf ku socdo waa mar ala waardiinaya kaliya askariga maanta qorraxda iyo taagaya ogtay in caada maalmaha Muqdisho aad u kurasha oo Muqdisho maalmaha kooyla dadka guriga lagu soo bixilaya taagan yahay qarx ayaa ku dhacay marro waa la dilayaa gaajo ayaa dilaysa wadada iyo raashinku cunaya bax madow ayuu ku shubtay raashin halka xildhibaanka mukeef hotel qurxoon iyo dalad qasriya wax walba ku cunay waxa xaqdarada Soomaaliya istawaa muuqaalka qabto la gaarsiiya maxaa ku dhacay maxaa qaldan aawa Soomaalidii aawa dadkii maartay u doodi jiray askar Soomaaliyeed ma heli waayeen askar Soomaaliyeed xuquuq wanaagsan oo ku filan $200 maanta qof iskaabalo Muqdisho garaxta ku filan halka xildhibaanka ee darada badan ku jooga buuq iyo qarrac ku jooga golaha shacabkana $500 qaato war muuqaalka shirkareeya xaq darada ka jirta Soomaaliya waa noocaas iska daa inay nabad noqoto xataa wax yar ma hagaagaysa xataa